shir saxaafadeedkani uu maanta ku qabtay magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Cabdi Xuseen Frey gudoomiyaha gobolka Gado ayaa waxa uu kaga hadlayay xilqa qaadistii uu dhawaantani ku sameeyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid wuxuuna sheegay gudoomiyaha in ay sharci darro tahay maamulka ku meel gaarka ee haatan laga hirgeliyay gobolka Gado isagoona sheegay in uu yahay gudoomiye si rasmi ah ay u doorteen dadka deegaanka dastuurku sida uu qeexayo waxa weeye dalku waa federal dalku maadu federal yahay dadku ayaga mas'uulka cid hogaamin lahayd ayaga ayaa inay soo doortaan ayaa xaq u leh ma aha in maalin walba inta mas'uul tago sharciga uu garab maro hadii dadkii ay hogaaminayeen oo dastuurkii ansaxsaday وهدي إلهي ما يصير شغل لها يمنوها وكل دقم لها ديار صدي لورا نسي أيجا هدي أيجا أي جرم مريان مالين والبر نسيب دروي تاس أرنتا أيضا أنا وحوي وحنا كتشرين هذا يراتي تذكر أيجا أود ولا معمول كي الشقين ويا دورتان إنه يسكردان وكل دورتان أيجا أنا حق ولا إنه هايستان هدو شقين يصير من وشقين تاس وحشرع معها تاس aniga ayaa gobolka gudoomiyihiisa dadku sida sharciga ay u doorteen waxa uu magacaabay wax ka jira ma jiraan hadda marka la dhiso Jubbaland wixii ka dambeeya ayay bulshadu xaq u leedahay in ay inay si ku meel gaar ah u magacaabato maamulada gobolada ay u magacaawdaan ama se ay kuwoodii hore ay u sii hayaan ama hadda kuwa cusub ay markaas si sharci u soo doortaan bulsho waliba ama gobol walba dadku ku nool ay soo doortaan waxa taas ka duwan oo sharci ah ma jiraan haba yaraatay gobolka Gado inuu ka reebo maamul goboleedka Jubbaland ayuu u sameeyay carqalad taas uu yeelay inuu dadkana dhibaateeyo ku carqalateeyo iskana horkeeno hase yeeshee Ilaahay baa mahad leh hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Gado ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku sameeyay xilka qaadis Cabdiqadar Iimaan Dhaqane TV عالمي هون كيبل Kismaayo